sida muuqata dowladda Soomaaliya door weyn kuma laha dagaalka ciidamada Puntland ay kula jiraan kooxda Daesh. dhowr jeer mas'uuliyiin ka tirsan dowladda oo madaxweynaha uu ka mid yahay, ra'iisul wasaaraha uu ka mid yahay, golaha wasiirada xubno ka mid ay ka mid yihiin siyaabo kala duwan ayay uga hadleen. waxay uga dhigan tahay in Puntland ay diiday dowladda Soomaaliya kaalmo inay siiso. qaarkood waxay yiraahdeen kaalmo ayaan siinaa, qaar waxay yiraahdeen Puntland iyaga ayaa diiday in kaalmo gabi ahaanba la siiyo. sidaa daraadeedna waxay ku eedeeyeen in Puntland ay ka mas'uul tahay wixii isfaham waa ah ee jira. wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka mid ahaa dadkii yiri irid aan garaacno ayaan waynay oo irdii waa uu naga soo xirtay Saciid Cabdullaahi Dani si dagaalkan uga qayb qaadano. laakiin waxaa hadlay wasiirka warfaafinta ee Puntland oo isaguna sheegay inay soo dhaweynayaan weliba gacmo furan haddii dowladda hadal oo kaliya aysan ahayn oo ficil ay ku darayso caawinaadda ay la doonayso dadka reer Puntland oo dagaal dhab ah kula jira maleeshiyaadka argagixisada. haddaba iyadoo taasi wasiirka uu sheegay waxba kama soo naasacadaan waana laga sii gudbay oo Puntland taageero toos ah oo ciidankeeda loo geeyay ama shacabkeeda loo geeyay lama arkin. wasiirkii gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo loo yaqaan wasiir madaxana furan ayaa isaguna xog la yaab leh ka bixiyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxada Daesh ee argagixisada caalamiga ah oo ajaanib u badan. wasiir madaxana furan wuxuu sheegay in Puntland aysan taageero ciidan weydiisan dowladda Soomaaliya, laakiin waxa uu intaasi ku daray in taageero kale ay siiyaan oo ah in howlgallada xagga cirka ah ay dowladda Soomaaliya ka mas'uul tahay. wuxuu cadeeyay in howlgal aysan saxiixin dowladda Soomaaliya ama ogolaanin in aan laga fulin karin xagga cirka marka la fiiriyo weerarada gudaha waddanka Soomaaliya guud ahaanba. taasi oo ka dhigan in dowladda Soomaaliya ay mas'uul ka tahay guud ahaanba sida uu wasiirka xaqiijinayo duqeymaha ka socda gobolka Bari gaar ahaan Calmiskaad ee lala beegsanayo kooxaha argagixisada. Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta ayaa labadan duqeynba fuliya, isla markaana inta ugu badan duqeymaha waxay ka yimaadaan dhinaca diyaaradaha Imaaraadka Carabta oo wada shaqeyn buuxda la leh dhinaca maamulka Puntland. haddaba daawadayaal doodaha kale ee taagan waxaa ka mid ah Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya xiriirkooda ma wanaagsana. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani isaga ayaa u tagay ay dadku ku doodayaan Imaaraadka kana dalbaday halkan in la xoreeyo. marka dowladda Soomaaliya door intee leeg ayay ku leedahay in Imaaraadka Carabta ay ku amarto ama ay ka joojiso weerarada xagga cirka. caadiyan dowladda Soomaaliyeed ayaa ah dowladda ka mas'uulka ah dalka, laakiin dhaleeceen ayaa loo jeedinayaa dowladda oo ah in doorkii kaga furnaa dhinaca Puntland ay kasoo bixi weysay. iska badaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo deegaano badan dowladda lagu dhaliilayo in sidii loo baahnaa uga jawaabi weysay baahiyo ka jira. wasiirka waxa uu intaasi ku sii daray in sidoo kale ciidanka xoogga dalka ay leeyihiin diyaarado aad u tiro badan, kuwa kalena hadda la soo wado, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya howlgallada xagga cirka ee Puntland xilligan dagaalka loogu caawinayo si ay uga hortagto kooxaha argagixisada. wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya madaxana furan waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka aadka loogu dhaleeceynayo in aqoon durugsan aysan u lahayn dagaal iyo arrimo ciidanba. sidaa daraadeedna ah shakhsiyaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca dagaalada ku taageera laakiin aqoon durugsan aan lahayn. wasiirka gaashaandhigga dhowr jeer oo hore hadallo uu sheegay buuq xooggan ayaa ka dhashay marka loo fiiriyo arrimaha Puntland. Puntland waxay sheegtay inay isku tashatay oo shacabkeedii gudaha iyo kan dibaddaba ay kicisay, iyada oo ka dalbatay in wax allaale wixii dhaqaale ay hayaan ay keenaan si loogu taageero ciidanka Puntland ee geesiyada ah ee muddo 2 bilood ka badan dagaalka kula jira kooxaha argagixisada. Puntland dagaal dhab ah oo aan branki ahayn inay ku jirto ayaa caddaatay kadib markii ay xoreeyeen ciidankeeda oo admis aan la socon, cid kale aan la socon, ilaahay kaashanaya ee dhul aad u baaxad weyn oo saldhigyo ay ku lahaayeen maleeshiyaadka Daesh. waxay la dagaalamayaan dad ajaanib ah oo Carab u badan oo wadankoodii soo gubay ama dunida meelo badan oo kamid ah soo gubay oo dambiye ka soo galay, kuwaasi oo go'aansaday in halkan gabaad ay ka dhigtaan.
waxay dileen rag waaweyn oo uu ku jiro Ibrahim Tunis oo ahaa nin dunida si weyn looga raadinayay isla markaana mar Tunisia lagu xiray oo arrimo argixisad loo xiray markii dambana la sii daayay. Puntland dowladda federaalka Soomaaliya ma iyada caawinaada ka diidan mise dowladda federaalka Soomaaliya ayaa caawinaada diidan? waa buuqa ugu xoogan ee hareeyay howlgalkan. reer Puntland iyo dadka Puntland aadka u taageersan qaabka ay wax ku wada waxay leeyihiin Puntland dowladeeda ma diidin ee dowladda ayaa Puntland diidan. halka sidoo kale dowladda Soomaaliya ay leedahay iyo dadka taageerayaba Puntland iyada irdaha naga xiratay oo diiday inaan caawinaad siino, haddii ay noqoto ciidan in loo geeyo, haddii ay noqoto saanad military in la siiyo, haddii ay noqoto in dhaqaale la siiyo. dowladda Soomaaliya iyo Puntland xiriirkooda waxa uu xun yahay muddo ka badan 2 sano, waxaana Puntland hore ay ugu dhawaaqday inay u dhaqmayso sida dowlad ka madax bannaan dowladda federaalka Soomaaliya oo kale, isla markaana ay caalamka ula macaamilayso sida iyadu ay doonayso. taasi oo ka dhalatay kadib markii wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka federaalka Soomaaliya oo Puntland ay ku qeexday in gabi ahaanba Xasan iyo Xamse ay tuureen madaxda ugu sareysa dalka dastuurkii Soomaaliya ay ku heshiisay. halkaas oo ay dowladda Soomaaliya ka careysan tahay ayaana loo maleynayaa in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay uga gaabsatay dhaqdhaqaaqa ciidan ee Puntland ay ka sameysay Calmiskaad, guulaha ay soo gaartay iyo weli dagaalada ay kula jiraan kooxaha argixisada. reer Puntland ayaa taageero badan ka helay caalamka dacaladiisa, waxaana sidoo kale ka mid ah dowladaha ku taageeraya dagaalkan dowladda UK oo sheegtay in taageero kala duwan ay siinayso. Ethiopia ayaa sidoo kale taageeraysa oo xitaa dhaawacyada u qaada Puntland. sidoo kale Imaaraadka ayaa dhaawacyada la geeyaa si ay u soo bogsadaan oo ay dadkooda dib ugu soo laabtaan. Puntland dagaalkan waxay ku weysay wiilal aad u qiimo badan oo saraakiil ahaa iyo kuwo kale oo dabley ahaa, kuwaasi oo dagaalkan u galay inay dhulka Puntland badbaadiyaan. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay in qatar badan dalka uu ku jiro, isla markaana marka howlgalkan Calmiskaad ay dhameeyaan ay soo bandhigi doonaan qatartaasi oo haddii laga sii aamusnaado si laba jibaarmi doonta sida uu hadalka u dhigay. Soomaaliya gabi ahaanba argagixisada ayaa kusii xoogaysanaysa iyadoo dagaalkii federaalka Soomaaliya uu u weecday dhinaca doorashooyinka iyo dowladda Soomaaliya oo ku mashquulsan inay diyaariso doorasho qof iyo cod ah oo kaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay dhowr jeer oo hore sheegtay in dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu bilaaban doono, haddana iyada iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa isku fahmi waayay oo waxaa laga ogaaday taasi kadib markii Axmed Madoobe dhowaan isaguna wareysi uu bixiyay oo uu ku sheegay dowladda Soomaaliya inaysan daacad ka ahayn in dalkan la xoreeyo, laakiin doorashooyin iyo waxyaabo kale oo kaliya dowladda ay ku mashquulsan tahay. haddaba waxaa la eegayaa sida ay Puntland uga falceliso hadalka ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya oo sheegay in Puntland aysan ciidan weydiisan dowladda Soomaaliya iyo caawinaad kale, laakiin xagga cirka dowladda Soomaaliya ay ka taageerayso oo dowladda Soomaaliya howlgal aysan ogoleen xagga cirka aan laga fulin karin. awoodda dowladda Soomaaliya ee xagga cirkana ay korortay oo xilligan ciidamada xoogga dalka kuwooda cirka ay haystaan diyaarado ay ku dagaalami karaan. guud ahaan intaas ayaan kusoo koobayaa xogtii ugu dambeysay ee xaalka Puntland iyo federaalka ee ku saabsan dagaalka ka dhanka Daesh. dowladda sida ay u hadlayso iyo Puntland qaabka ay u hadlaysana markastahay waa ay kala fog yihiin. muuqaalkan kan xigeentan dib ugu kulmi doono. nabadgelyo.